بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan aad ugu hambalyeynaya farxadii ah inaan xafiiskayga kula kulmo Cabdifaax Saciid Diiriye Cabdullaahi Saciid Diiriye Burhaan Maxamuud Cabdirashiid iyo Faadimo Saciid Diiriye oo ah hooyada iyo walaalka maxaa la yiraahdaa carruurta yararka isxilqaamayaasha aad baan ugu bogay idinkuna hambalyeynaya hawshii wanaagsanayd ee aad qabateen hawshii aad ka qabateen buundada isxilqaankiina dareenkiina iyo maaragtay hadalladii wanaagsanaa qiirada lahaa ee dhiirigelinayay dadka waddankan jecel inay waddankooda wax u qabtaan sida dad kale wax ugu qabteen ee aad soo gudbiseen soo dhawaada waxaan rabaa maanta inaan soo dhaweyn wanaagsan idin sameeyo xafiiska ku soo dhawaada dhalinyarada kale da'diina iskoolka wada dhigataan kuwa idinka waaweyn iyo dadka magaaladana waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan oo ay fahmaan waxa dhallaanka yaryarka ay fahmeen oo ah in waddankani u baahan yahay dad kale inay wax u qabtaan oo qof walbaaba waxa uu awoodo uu qabto meel walba dawladdu ma taagna wax kasta dawladdu ma qaban karto meel walba askari ma taagna amniga lama wada ilaalin karo meel walba horumarkeeda lagama wada shaqayn karo laakiin haddaynu kulligeen qof walbaaba inta ku aadan uu sameeyo maxaa la yiraahdaa waddankan wax badan baa u qabsoomaya wadamo waaweyn buu la tartamaya waxyaabaha aad ii soo jiitay waxaa ka mid ah Rwanda oo ku faanaysa 800,000 oo qofna ay ka dhinteen maantana magaalada Afrikana ugu quruxda badan ugu korida badan ugu nadiifsan ah waxaasna waxa gaarsiiyay dadkooda iyo wacyigooda dadka reer Garowana waxaan ka codsanayaa in wacyigooda kor u kaco garaadkooda hagaagsanaado waddanka ay ka shaqaystaan iskaa wax u qabsaa wadamada lagu dhisay Soomaaliya baa waqtiga iskaa wax u qabsaa lagu dhisay Garowana iskaa wax u qabsaa lagu dhisi karaa marka Garowe inaynu iskaa wax u qabso aynu kaga shaqaysano haddii Rabbi idmo qof walbaana intii uu awoodo inuu qabto haddii Rabbi idmo haddii Rabbi idmo buundadii aad bilowdeen ee shaqadeeda hagaajiseen wixii ka dhimanna waa dhameystiraynaa idinkana insha Allah taala waxa la wixii idinka galay iyo wax lagu darayba waa idin siinayaa haddii Rabbi idmo maxaa la yiraahdaa hawl aan anagu lahayn oo dayacan baad na tusteen hawlo kale oo badan oo dayacan yihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadkana marka waxaan ka codsanayaa qof walbaaba inuu isxilqaan ku sameeyo qofka wadada hortiisa ahi ay qashin yaallo qashinka ka qaado meeshii burbursan uu buuxiyo maxaa la yiraahdaa haddii Rabbi idmayo warqadaha maaragtay dadku tuurayaan uu yiraahdo war ha tuurina meel ku rid waxay noqonaysaa magaaladuna nadiif bay noo noqonaysaa wadooyinku way noo hagaagayaan dalku way noo dhismayaa qof walba inta kaga aadan ha qaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin bismillaah waa Faadimo Saciid Diiriye maanta waxaan ku faraxsanahay inaan xafiiska degmadan uu xafiiskiisa nagu soo dhaweeyo aad bay farxad gooniyo noo tahay aniga ilmahayga waxay noo tahay dhiirigelin maadaama aan muxuu duq u yahay mas'uulkii annaguna waxaan nahay shacabkii dhalaankaana waa dadkii muxuu ahayd buundada ayaan tidhaweyto dhalinyarada wax ka qabatay annagana maanta waa ii farxad duquna muxuu ahayd laftigiisu waa u farxad inaan muxuu ahayd ayaguna farxad bay dareemayaan maadaama maanta xafiiskii dhiirigelin muxuu ahayd ay u sii tahay waxyaabaha aan hadalkayga ku soo darsanay maanta waxaa ka mid ah hooyooyinka iyo waalidka waad aragtaan waalidku wuxuu ka qayb qaadan karaa qayb lixaad leh ilmahooda inuu dalka dareemo dalkan waalidka waxaa iska leh ummadeena Soomaaliyeed ummadeena reer Puntland waxaan inoo noqonaysaa waddanku wuxuu noo noqonayaa sida aan ka dhigano haddaan anagu khalad ka aamino dalka inaan lagu noolaan karinin uu qalaasiye dhib leeyahay waa khaladkaad ka aamintid haddaad ka aamintid waddankaagu inuu nadiif ku yahayna waa sidaad ka dhigatid mas'uuliyadda ninba dhan buu ka hayaa mas'uuliyadda waxa ugu culus mas'uuliyadda waalidku uu hayo waalidku waa inuu aad ilmihiisa ula socdaa tarbiyada dalkiisa muxuu ahayd wadaniyada dalkiisa iyo tarbiyada akhlaaqiyaadkiisa insha Allah waxaan rajaynaynaa in hooyooyin badan iyo aabayaal badan ay ka qayb qaadan doonaan horumarka dalka ka socda marka nin walba dhankiisa ha ka hayo xagan wax salaam duqa magaalada Garowe oo xafiiskiisa ugu siiyay shahaado sharaf oo maanta sida aabaheena kale noo soo dhaweeyay أنا هذا واحد مسينا قف ويا لكن قف وش قضى بدن حتى واحد شيء دتك تاجرين تا العقد يسته هنا الإنسان بدويك وين يجروا كتب يلام يدا يوميلا قشن كسيد توجع قشن كقصو قرية هنا كده يعني لو شيء هنا دتك وكقران
hadday hal qof yimaado halka ka guro waxaa imaanaya kumanaan dada ka gurisa halkaas aan lacag ku qaadeen waxaan halkaa ka sheegaa riyada ma rumoodo ilaaha ka dhamaysid gaadhid hadafkaaga anigoo magacaygu yahay burhaan maxamuud cabdirashiid waxaana halkan ka sheegayaa annagoo sameynay buunto yara laakiin balse waxaa sii sameyn doonaa wax badan oo kuwa badan waxaan sameyn doonaa kuwa badan waxaan halkan ka salaamayaa duqa degmada oo na soo dhaweeyay oo na siiyey weliba shahaadooyin oo weli noogu soo dhaweeyey siduu ciyaal u dhalo camal oo kale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعد يا عدوها سعيد ديرية وحنوم هاد عيدة يا دوق الدقمة قروة أنا قدر نسوي شهادة الشرف وحنا هالكان فرين وقدر يا دمان ومدة الصوماليات وحنا فرين سيجارة ووسعتها dadka qadaadiicda ama lacagta xoogaa haysta waxaa leeyahay lacagtiina baxsada kuna dhisa buundooyin ama u qabta bulshada waxyaabo badan anagu waa sida lagaabana shaqadeena waxaa ku dari doonaa qoraacdeena ama qadeedeena iyo cashadeena haddii ay naga ogolaadaan waalidiinteena